السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتي نقيارتا وحاني اللي جمع فلوك سودو هذا كنال كيني إنه كوهاد كبرنيني كناسي ما أنتو وحاني إني الودا قدونا هدوي الله يودا ومقالك ندعيس إني الودا قدونا صدح كناسي أو وطنكي آد لوغا باهي إن لفلوك أو أنيو تنجوي صدح دا كناسي وطنكا كمان أرق إلا يمكن من أرق قفرة laga yaabaa dad maskaxdooda imika ku jirto inay jirto oo baleenka diyaarsaday sababtoo business kuwa security waxaa jira wax imika ku suurtagelay inuu dib u dhiganaso marka dad caynkaas hadii jiraan iyagana waxaan leenahay cagta u geliya oo bilaaba ganacsi waan leenahay haddaba inaan xamaadal badan ku gudaani saddexda ganacsi ee wadankeena ka banaan ee maanta aan isleeyahay lacag badan ama dhaqaale fiican ayaa laga sameyn lahay haddii loo isticmaalo qaab istaraatiijiyad wanaagsan oo business balaan ah oo analyze iyo design-kiisa leh oo mashruuc suurtagal ah loo adeegsado sidoo kale loo adeegsado in qaabkii loo suurtagelin lahay wada sax loogu dhaco loona diyaar garo dib iyo dheeftiisa weyn sababtoo business-ku adkaysi u baahan moogtahay saddexda aan kula wadaagaya hadda waxay tahay maanta qodobka koowaad haddii aan kuu soo qaato horta intaan qodobka koowaad aan sheegin hal mid baan kaga hordhacaya midaas waxay tahay ganacsiga waxaa jirta ma aragtay wadankeena ganacsato badan baa wax ka furay xogaa barabaleenka ugu badan ee aan wadanka ka dareemin waxay tahay dadkii ganacsiga furtay ganacsiga ay fureen iyo bulshadii isma fahmeen sababtoo ah bulshadiini may gaarin levelka ay ganacsigan qofkani uu furay ay ku fahmi laayeen qofkiina meeshaas ayuu khasaare ama barabaleen kala kulmaa marka saddexdan ganacsi aan maanta kula wadaagi doono wadanka ka banaan waa saddex ganacsi ay bulshadu ku fahmi karaan oo ka duwan ganacsigii ahay technology-da cusub dabcan waxaa cusub dadku inay la qabsadaan way adag tahay samir buu baahan laakiin saddexdan ganacsi waxaan aaminsanahay insha Allah haddii ilaahay yiraahdo inaad ku guuleysan doonto haddii ilaahay kii ku guuleysanay ku doorto insha Allah waa tahay qodobka koowaad ee ganacsigan aan ka hadlayo waxa weeyaan wadankii sidaan anigu arkay ma jirto meel loo yaqaano gender nutrition yani ma jirto wadanka meel cuntada quudinta ama ciyaalka xanaaneyntiisa iyo sidoo kale maxay ahayd xanaaneyntiisa sidoo kale nafaqadiisa yani meel u go-an ma jirta kuma oran karo wadanka ciyaalka nafaqada waxyaabaha ciyaalka lagu nafaqeeyo meel lagu iibiyo wadanka ma jirto way jirtaa laakiin waxay isku dhex jiraan waxyaabo badan mashruucyo badan bay isku dhex wadaan waxaad arkaysaa meel electronic ina iibinaya quudintii ilmaha yarna iibinaya bir iyo caano wax isku dhex wada ma fiicna business-ku balaankiisu wuxuu aad u fiican yahay markuu allaan yahay wax yacni mid meel gooniyaya marka wadanka waxaa ka banaan aad iyo aad business ama meherad in la furo meheradaasina ay noqoto mid quudintu waxay noqon kartaa nafaqo in ilmihii wixii nafaqeynayay la keeno oo wadanada ajnabiga laga keeno qaar wadankeena qudaarta ka baxda dalaga wadanka ka soo baxa qaar laga sameeyay la casriyeeyay mashiin la sameeyay la soo ridqay sida qamadiga oo kale waxyaabo badan oo aad wadanka vitamin leh waxaad arkaysaa ilmo yar oo ay tabartiisu liidato oo loo geynayo dhakhaatiir miisaan la saarin miisaan ilmaha yani lagu ogaanay inta kilogram yahay maxaa haysta ilmaha miisaankiisu waa maxay maxaa ka maqan borotiin nooceeya ilmaha muxuu cunaa waxaad arkaysaa dad waalidu wadana ilmihii ku biila gareynaya ama cunto ku siinaya cuntadii caadiyii dadkii waaweynay cunayeen oo ilmihii aan soo kabi karin oo aan soo istaaji karin ilma yaro socodkii gabayaad arkaysaa waa tahay mawduuca ayaan ku dheeraan inaan saawsi kadama doonaya wadankii runtii waxaa aad uga banaan inaad furtaa meel keliya lagu iibinayo ciyaalka xanaanadeeda ama nafaqa ciyaalka wixii lagu nafaqeynayay haddii ay noqoto caanihii ilmaha yar lagu nafaqeynayay ilmihii bisha jiray 2 bilood 3 bilood 4 bilood 5 bilood kii naaska shaqeeyay kii socday ilmihii weynaaday kii kale koriyay korinku dib uga dhacay sidii loo gaarsiin lahaa da'diisii socodkii loo gaarsiin lahaa wataas
hadday noqoto cabitaanada noocyadiisi kala duwanahay in la keeno maangadii sharaabkii mushakarkii oranjigii banaan muuskii waxaasoo dhan ciyaalka waxaa loogu talagalay sharaabyo nafaqo leh way jirtaa oo dadka waaweyn ciyaalku isku mid maaha qaybta cuntada sidoo kale waxaad kusoo darsan kartaa ilmaha yaryar waxaa jira cuntooyin loogu talagalay oo nafaqo leh oo la isku shiido oo qudaartii oo kale oo ay nooc isku jirto vegetablekii waxyaabihii cagaarka oo dhan waxyaaba caynkaasoo dhan ayaa jirta waxaa laga sameeyo oo la safaari gareeyo oo la diyaariyo oo talaajada la gelinayo oo ay yacni isbedel aan lahayn oo original in waxyaaba caynkaas markaad ballaangareyso aad wata wadankii waa u anfacaysaa dhalinyar badan oo ciyaal badanna waxaad u suurtagelaysaa dadkoogii inay u helaan cunto nafaqaysan waxaad arkaysaa dad Yurub ciyaalka keenaya oo cuntadoodii Yurub kasoo raray oo haddii ka goodo Yurub loo keenay sababtu maxay tahay wadankeeni baan ka jirin waxa loo yaqaano children nutrition ciyaalka in la nafaqeeyaa wadankii way jirtaa laakiin qaabka loo nafaqeeyaa haddii haddaba aad magaalooyinka Soomaalida ka furto meherad u gaara nutrition childrenkaas waxaan ogahay oo aad adeegsato wixii loogu talagalo dhan ciyaalka lagu nafaqeynayay adigoo skills badan raadinaya oo muuqaalkan aan ku ekaanin soo baadh wax badan oo anigu kula wadaagay iyo wax badan oo adigu baadho markaad sugayso runtii waxaa kuu suurtagelaysaa inaad hesho businesskaas realitygiisa in wadankeena si fiican aan looga hayn caano yaryar iyo waxyaabo la keeno ma garatay wataas waxaan odhan lahay way jirtaa wadankeena meel ciyaalka loogu iibiyo cuntooyinkiisa waxaas laakiin meel u qaasa oo wax kasta u diyaariyiin ilmo haddii nafaqadiisaba haddaad lasoo hadal qaado wixii lagu nafaqeynayo dhan company qaabilsan haddaad furto waxaan odhan lahay waa qodob adiguna aad ka faa'iidi karto dadkana aad u faa'iideyn karto waa tahay qodobka labaad haddii aan galo aan isleeyahay wadankii uu ka banaayay oo shirkad caynkaasa ama ganacsi caynkaasa ma jiro waxay tahay in la aasaaso companygaas muxuu yahay ay kula tahay shirkado badan baa wadanka ka jiraan iyo companiya badan way jiraan beenma haddaba companygaas waxaan ka wadaa company waxaa la yidhaahdo company security sidayna badan saan ognahay wadankeena waxaa ka jira shirkadaha waxaa ilaaliya odayaal ama dee dad iska dhexaadoo la isleeyahay waa mas-uul dadka mas-uulka ayaa weeshmaan laga dhigaa wadankeena sidoo kale dadkaas haddii bangroolka ay ku yimaadeen meesha aad eegto waxay ku yimaadeen weji qabiil qabyaalad askarinimo baalo xufteen ama ka companyga iska laaba dhalayo waxyaaba caynkaas haddaba laakiin iyagu ma tababarna security ma aha ma sharciyeysana qalabkii ma haystaan telefoon loogu talagalay securityga male halkan waxaa jirta securityga weeshmaanada abaabada kamerad yar oo shaatiga ama koodka u xoriyay uu ku dhajisanayo oo qofkii uu hor istaago markaba duwas oo qaybta IT-ga CC camerooyinka qaabisan ay la soconayaan qofka dhaqaaqiisa sidoo kale waa qof tababaran oo 3 qof 2 qof iska caabin kara ma jirto wadankeeni qof saas oo kala oo security waxaad arkaysaa oday waayeelo 60 jir ama 80 jir oo u naxayso adigii tuugaaya duu qof tuugay baad dabcan company aad sooranayso caawi ayaa lagu oranayaa waa security dhamaay company marka waxaan aaminsanahay company security wadankeena inuu u baahan yahay companyga security-kana ay samayso shuruudahan aan ku sheegayo iyadoo mashruuca ka gelayahay mashruuc yar yahay yani lacag badan aysan ka gelin waxaad sameynaysaa kaliya company security la yiraahdo kadibna waxaad sameynaysaa inamo da'doodu ay u dhaxayso ilaa 40 ilaa iyo 25 dad ay da'doodu u dhaxayso oo raga oo gentleman oo lixdooda lixaad dhameystiran tahay ayaad keenaysaa kadib waxaad ku tababaraysaa ama haddii adigu skills u lahayn waxaad siinaysaa macallin skills u lahayd qabanaysaa waxa uu tababarayaa qaabkii ay security ku noqon lahaayeen nidaamkii iyo sharciyadii security-ga yacni protocolkii dhammaayay security-ga ayaa la siinaya tababarkii ay wax iskaga difaaci lahaayeen sidoo kale tooliska ay haystaan qaabkii u isticmaali lahayn kadib markaad company caynkaas samayso ma kula tahay inaad ku khasaarayso ani xaggayga jawaabtu waa may sababtoo ah intii qof ayaa kuu baahan bas leedahay waxaa kuu baahan hoteeladii sababtoo hoteeladu waxaa loo keenaa in dad qabiil ku yimid aan aqoontii security-ga lahayn xirfadii aan lahayn ability-gii aan lahayn tooliskii aan lahayn balse adigu markii aad keento dad xirfadii leh awoodii leh
lixdooda lixaad dhamaystiran tahay sidoo kale toolis wata kambanigii lasoo xiriirayo adigu aada mas-uul ka tahay ma kula tahay inuu hotel kasta diidi karo yani jawaabtu waa ilamaya waa kambani banaan baan odhan lahayd kambaniga securityga sidoo kale waxaa kuu baahan guryo dad iska leeyihiin oo dibadda jooga ayaa jirta oo dad u ilaaliyaan waxaad arkaysaa in security dhan oo lagu leeyahay waxbuu ilaalinayaa oo aad haddaad guriga soo gasho hurda haddaad ka baxdo hurda haddaad joogto hurda yani qofkii isagiiba meesha maalqabeenkaaga iska hurdaaba yani taas waxaa keenaya waa nidaamkii wax protocolkii securityga male waa qof ama baadiyaha laga keenay ama camal loo waayey la keenay maaha muuqaalkan inaan dad badan shaqadooda baabiinayo laakiin waa nidaam kambanigan u baahan waa tahay muuqaalka haddii aan u gudubno qeybta saddexaad ee mashruuca ka banaan wadankii mashruuca wadan ka banaan haddii aan ku noqono qeybta saddexaad waxa uu noqon karaa in aynu sameyno meel ama kambani aynu sameyno ama meherad aynu sameyno sameysa cuntooyinka dadka xanuunka leh yani kambani inaynu aasaasno ama meherad cuntooyinka dadka xanuunka leh waxaad arkaysaa wadankii qof macaan leh dhiikar leh xanuunsanaya caqabado badan haystaan oo waxaad arkaysaa aan cuntadiisii loogu targelin iminka wadanka dadka macaanka qabaa sokorta waa laga ilaaliyaa suurtagal sax haddaba haddii aan ku dhaato muuqaalkan kula wadaago sonkor loogu talagalay ayaa jirta dadka macaan oy cunaan oo qururada ku jirta oo wadanada Yurubta iyo America laga isticmaalo jirta oo haddii aad dalbato online Amazon aad lagu keenay Alibaba AliExpress si toos ah wadankii kugu keeniyo oo shirkadda DHL kugu keenayso sidoo kale cuntooyin badan oo dadka macaanka wadankiina la yiraahdo cunin alla waa sidan ayaa jirta loogu talagalay cuntada wixii ay iyaga dhibi lahayn laga saaray oo qofkii u keeni lahaa loo baahan yahay wadankiina maadaama uusan shirkada lahayn sidoo kale kambanigan waxaad ku labeynaysaa laba service baad ku qabanaysaa isaga dhexdiisa qayb waxaad ku sameynaysaa qayb aad ugu diyaarinayso dadka cuntadoodii oo dadka macaanka qabay dadka da-dan ka hadlaya waxaa jira dadka badankooga Yurubka America jooga dadka waalidkooga ee wadanka ka jooga 700 600 buu soo diraan haddana waalidkii markaa mar walba uu soo cawdaa wuxuu dhahdaa waa sidan caafimaadkii waa xanuunsanaya waa sidan waxaa laga yaabaa gabadh yar oo shaqaysay inay qaladaad ay gelayso waalidkan u dhiban yahay waalidkan dhan ee lacagta loo soo dhisay dadka qurbaa jooga ee wax kasta u qabanayeen ay jeclaayeen shaaqadii u qabteen gabadha loo qabtay inay cuntadiisa ku dardariso milix igada bal hay haddii aad sameyso cunto online ah oo wadankii aad ku iibiso oo aad dadka macaanka qabo cunto gaara dadka dhiikarka qabo cunto gaara ani disease yani cudur kaste hadda aad ka hayso dawooyinkiisii yani ama wixii jeermiska ka dilay wixii qofkii saameynta ka saarayay ya aad u diyaariso cuntooyinkiis kadibna delivery aad sameyso dadka aad u geyso maanta haddii aad 20 xaafadood aad u hesho macaamiil waxaad dhici karta bishii lacag 2,000 aan ka yaray inaad hesho oo aad cuntadooda u geyso haddii cashado kaliya ka badan 20 ka habeen 20 ka xaafadood ayaad faa'iido leh ku qabtaa oo cashadii aad u geyso sidoo kale service-ka labaad ee raacsanayso waalidku wuxuu noqonayaa in aad waalidka caring aad mawduucan caring service labaad bad raacin oo care leedahay care waa maxay care parents dadka waaweyn waxaa jira wax lagu ilaaliyo ama yani lagula tacaalo caafimaadka xaaladooda maadaama dadka weyn iyo dadka kale isneen sababtoo ah dhinacaana badan baa qofka ka maqan markuu da-diisu weynaato tabartiisa yaraata waxyaabo badan oo lagula tacaala jira hadday noqoto dhanka sharaabka hadday noqoto waxyaabo kale timirta yani wadani يعني عندهم كودنيجا سدوا كله هذين نقطة شراب وطنك حب كل جس مي شراب تمرتي وشراب جس مي باباي زيتونكي حبه وحاصل أن والنجرة ونقف وحوسة منين هذه ديارسو أو سدوا كله أو ديارسو قلب بيت قلب تتكوين أنت بدون وحنوسطان مير باجبتا مير با وحنقطة سيبه وحدعان هذه كنتو كورن بل treatment tools wax la yiraahdo wax qalabka saaciidaya qof baa loo ka tabi waalido kale hadii aad keento qalabkii healthiga ahay ee lugta la gelinay in qalka xaganaad ka arkaysaa bay la tahay marka waxay noqonaysaa
qofkii lugtii waa loo gelinaya mashiin, waa qalab yaroo la gelinayo lugtii, isagoo qofkii jaban tahay ayuu iska soconaya, wuxuu doonaya qabsanaya, salaada iska tukanaya, yani caadi iska noqonaya. yani lugtii qalabkaasaaba ka kabaya oo caadi ka dhigaya. waxyaabahaas oo kale. sidoo kale dumarkiina waxaad arkaysaa in qalin lagu sameeyo, waalidka oo hablihii la qalayo, tubaadiye ka timid magaalada joogtay waa la qalayaa, inta yaree xanuunka socdo qalinka la tolo waxaad arkaysaa iyadoo magaalada iskaga noqonayso. labadoo cisho ka bacdi waxaad arkaysaa dhaawac dib u furmay. maxaa keenaya? waxaa keenaya in aan garama loogu talagalay jiraan gabadha markii uurka lagu qalo ay ka baxdo umusha, in loo sameeyo garan yar oo kaa sahlaya. halkan buu yaalaa garanka, waad arki kartaa qiimihiisa, amisom baad ka tabar kartaa, wadankii inuu yaalana waan filayaa meelo badan. waxaa markaa sameynaysaa garankaa yar in ay gabadhii caloosheeda saa isku soo geliso oo ay u sahnaato in ay dilaacaasi dheerdheer ku fulmin. waxaad arkaysaa gabadh imika qalin lagu sameeyey, gabadh islaayeen oo calooshii dhaawac ka gaaray, dilaaci fulmay qodobkii. yani garankaa markasta markaad gashato aad ability ayuu ku siinayaan. waa tahay waan inaad ka faa'iidi doontaan baan filayaa 3 qodob ee la wadaagay oo ahaay mid aad ku furayso qeyb nutritionka childrenka ciyaalka yarar meeshii lagu nafaqeynayay aad samaysanayso meel u gaara. midda labaad ahayd inaad campaign security sameynayso, security amniga suga oo ay baahin hoteelada, guryuhu, dadka cid kaste, hay-adaha cadaanka ay kaa qaadanayaan way wato sababtoo ah campaign security Europe iyo America waa laga garanayaa, hay-aduhuna waa American iyo European. waa ka ta saddexaad oo ahayd meel waalidka campaign waalidka daryeela, hadday noqoto qalabkii, hadday noqoto cuntadii, hadday noqoto sharaabkii, hadday noqoto daryeelkii. saddexdaas ayaan maanta jeclahay in la wadaago. waan isleeyahay wadankii way ka maqan yihiin, waana loo baahan yahay. tan iyo tan muuqaalka la ku kulmayna waxaan igaga tagayaa waa walaalkiin Cabdiqaadir Nuur Daahir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.